انتهى علي أبوء بذنبي فارحم علي فاغفر لي يا رب لا يغفر الذنوب إلا أنت يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني يا إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني واهدني ولا تتركني أرجو إليك فلا تكلني أنت حياتي ومصيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaan idin rajaynayaa maalin wanaagsan, caafimaad iyo cimri dheer insha Allah. waxaan jeclaan lahaa maanta inaan idin la wadaago 5 talaabood oo maskaxdaada ay uga mid tahay beerta. maskaxdaadu waxaad ku beeri kartaa miro kasto sida geedka tufaaxa oo kale. mirahaas oo miro wax noloshaada ka dhalin kara ah. ugu horeyntii waxaad u baahan tahay inaad hesho ciid ku haboon aad ku beeri karto miraha. ciidu waa maskaxdaada oo wax kasto aad ku abuurto ama ku fakarto kaasoo miro dhalinayso. marka labaad waxaad u baahan tahay inaad doorato miraha aad doonaysid inaad ku beerato beertaas. miruhu waa fikirkaaga ee hagaaji fikirkaaga si aad uga miro keento noloshaada iyo aakhiradaada. marka saddexaad waxaad u baahan tahay inaad siiso biyo ku filan. biyuhu waa go'aamintaada, go'aanka fikirkaaga iyo ficil qaadashada fahamadaada. marka afaraad waxaad u baahan tahay inaad ku beerto miraha meel laga heli karo qorax. si ay mirahaas u baxaan qoraxday u baahan yihiin. qoraxdu waa dareenkaaga ee hagaaji dareenkaaga. aaminna inaad kheyr la kulmi doontid dadaalka iyo ducada Rabbi kadib. midda shanaad waa sabarka. siiwad sabarka, siiwad ha ka daalin. siiwad si aad u hesho sadkaaga. mahadsanid. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fadlan haddaa ka heshay la sii wadaag walaalaha. maxay talaagna sameey and subscribe si aad ula socotid waxa cusub oo marmar soo galiyo insha Allah. mahadsanid. salaamu calaykum. aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin dhammaantiin. waa inoo mar kale insha Allah tacaala.